shirkan ay maamulku kula hadlayeen warfidiyaanada Soomaaliyeed ayaa waxay ku beeniyeen in aeroboortka Gaalkacyo lagu dilay laba dhalinyaro ah kadibna iyagoo isku xirxiran duleedka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo la soo dhigay. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug Farxaan Cali Xaad ayaa cod qeexan ku beeniyay jiritaanka arrintaasi. ay qoreen saxaafadda Soomaaliya qayb kamid ah in aeroboortka magaalada Gaalkacyo lagu dilay laba nin kadibna iyagoo isku xiran la soo dhigay aeroboortka agtiisa ama soonaha aeroboortka. arrintaas oo runtii nagu noqotay arrin aan aad ula fajacnay ahaydna mid aan jirin oo wax ka jira aysan jirinin ahna mid lagu dilayo sumcadda gobolka iyo degmada Gaalkacyo. ma jiraan haba yaraatee dad la isku soo xiray oo lagu dilay degmada Gaalkacyo maalinka shalay ama maalmihii ku xigay waxa noqoto ma jirin. idaacadaha iyo saxaafadduna waxyaabaha ay boonbooninayaan qaarkood ay maaragtay leeyihiin waxaas la sameeyay ama shil aan dhicin ay iyagu sameynayaan xogaa arrintaas waxay nagu noqotay dhib badan. runtii waanu kala xaajoonnay idaacadihii sii daayay arrintaas ragga mas'uuliyiinta ka ahaa qaarna waanu ka hadalnayba. marka muhiimadeedu waxay tahay waxaan ka codsanaynaa saxaafaddu waa mid laba af leh. dadka waxay u sheegtaa wixii hadda markaa jira runta ah. haddii waxa khaldan dadka ay u sheegtana boonboonin kale ummadda laftigeeda ku noqonaysaa. waxaan ka codsanaynaa marka saxaafaddii maadaama aad tihiin inaan la qaadano ereyga saxaafaddu waa xor. xorriyadda saxaafaddu maaha in wixii la doono la sheego. xorriyadda saxaafaddu waxay tahay in waxa dhabta ee jira markaa la sheego keliya. saxaafaddu xorriyadeedu waa intaas maaha inaan dadaan la dilan yiraahdaan waa la dilay dad baa la isku soo xirxiray yiraahdaan dad baa shil baa halkaa ka dhacay inay yiraahdaan ku degdegaan xoogaa wax qurux badan maaha. arrintaasina guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leenahay waxba kama jiraan arrintaas. degmada Gaalkacyo dad isku soo xirxiray la laayay ma jiraan. waa wax sumcadda Puntland iyo tan gobolka iyo degmada wax loogu dhimayo. waxaa isla shirkan ka hadlay duqa degmada Gaalkacyo Saciid Cabdi Faarax oo sheegay in ammaanka guud ee magaalada Gaalkacyo uu aad u wanaagsan yahay maalmahan dambe. marba wax dhici jirin hadda bishaan iyo bishii hore ma dhicin. arrintaas gudoomiye ku-xigeenku ka hadlay oo kale oo been ah oo iyo kuwa la mid oo hore marmar beenta loo sheegay jiray dagaalka ka dhacay aeroboortka la waa ka dhacay. sharaa'idada qora iyo dadka sheega waxay badan yihiin gobolada koonfureed. waxaa laga yaabaa caasimadda Soomaaliya in sharaa'idkeeda ay qorayaan goboladii wax ka dhacayo been ah. marka taas saxaafadda baan kala hadlayaa dadka saxafiyiinta ah waa inay ka waantoogaan. shirkan ay mas'uuliyiintu kula hadleen bahda warfidiyaanada Soomaaliyeed ayaa ku soo aadaya xilli dhawaan ay saxaafadda Soomaaliyeed baahisay warar sheegaya in aeroboortka magaalada Gaalkacyo lagu dilay laba dhalinyaro ah dabadeedna meydadkooda la soo dhigay duleedka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Cumar Axmed.